waa mar kale yahayaankii dib u noqoshada iyo soo saaristii labaad ee halkii aan ka imi. doorkan way ka duwan tahay markii hore iyo soo saarista documentary filmkii hore ee halkii aan ka imi. waxaanu ka baxnay magaalada Hargeysa. waxaanu sii jeednaa goob aniga saameyn gaar ah igu leh. waxaanu ku sii jeednaa deegaanka Dhooboweyne oo ka tirsan gobolka Daadmareed. kolkan waxaan dareemayaa si ka duwan hayaankii hore dib u noqoshada. xilliga waxaan waajahayay ka soo xog gudbinta xaalad xanuun badan oo dadka miyiga ku nool qaar badan oo ka mid ihi ehel la noqdeen. waxaa qalbigayga xaradhaaminayay xanuunka waxbarasho la'aanta miyiga. waxaan meesha ku qoray maanta alif ba ta sa jiim xa muddo ka badan ilaa 3 sano waxaan habaan yara dhigtay intii aan meesha ku celceliyey. waxaan makaan garanayaa intaas la dhigan intaas karnaa ma ku celceliyey. ayatay waan guurguurnayo waan ka baxay malcamad yaradna inta maraya maanta waxaad kala jirtaa ariga sagaalkan dhalay nin baa wax ka bartay inta kale waxba kama baran inkiina halkiisa aha malcamada kolka ka gargaar galo dadkan wax ka dhig waqti iyo abaaro ayuun baa la kulma. malcamada markii ugu horeysay waxaan ku bilaabay 5 arday. haddii aan ku bilaabay 5 arday malcamada markii dambe ardaydu waxay gaadhay adigu ilaa dhowr iyo 50 bay gaadhay. dhowr iyo 50 markay gaadhay ardayda caqabada ugu horeysay ee naga hortay waxay noqotay meeshii wax loogu dhigi lahaa oo meel salaxan ahayn. meesha ku abuuran waa 35 ka ciyaara 35 wax yaqaan ma laha inuu maxay yeelay maba arkaan magaalo iyo macallin iyo wax joogaba. waa korka xaadis iftiiminayay fariintii uu xambaarsanaa halkii aan ka imi koobaad. haddii aad wax ka aragteen dhibta waxbarasho la'aanta miyiga oo aan tusaale ahaan u soo qaatay deegaankii aan ku dhashay ee aan ku barbaaray oo duruufta waxbarasho la'aanta la wadaaga deegaano badan oo ku yaala miyiga Somaliland. soo saaristan labaad ee halkii aan ka imi ayaa xambaarsan xal jawaab u ah dhibtii waxbarasho la'aanta ee deegaanka iyo weliba deegaanada kale miyiga ah ee dhibtan oo kale ay ka jirto. markii uu soo baxay halkii aan ka imi koobaad 4 bilood gudahood ayaa dadka deegaanka Dhooboweyne oo ahayd meesha aan filimka ka sameeyay waxay guddoonsadeen in ay dhibta waxbarasho la'aanta ka tashadaan isla markaana ay xal ka gaadhaan. wadatashi la sameeyay kadib horaantii bishii Juun ee sanadkan 2016 waxaa la isla qaatay in geed hoostii la ood dhigo si ay u noqoto xalkii koobaad ee ka xorowga waxbarasho la'aanta. waqtigaana waxaan fursad u helay inaan la joogo oo aan ku weheliyo howlgalkaas ood dhigista oo aan u arkayay mid ka qaalisan daar weyn oo la dhagax dhigayo maadaama oo ay ahayd barbilowgii waxbarashada. waxa isaguna ood dhigista nagu helinaya Mawlid Xasan Macallin oo aad hore u aragteen sidii uu uga cabanayay dhibta waxbarasho la'aanta miyiga isagoo hadda da'diisu joogto xilligii waxbarashada isla markaana haatan jira 12 sano. waa salaad hore sida dhaqanka ah dadka miyigu waxay isu diyaareen maalista iyo foofinta xoolaha waana hawl maalmeedka carruurta miyigu isu diyaariyaan inay gutaan marka uu waagu beriyo ilaa inta uu gobolku ka dhacayo. waa deegaanka Dhooboweyne oo aan ku waabariisanay.
mawliid xasan macalin oo aynu hore u aragnay dareenkiisa waxbarasho la'aanta miyiga iyo inuu awal fikirkiisa iyo ficilkiisuba ay ahaayeen xoolo raacisa hadda xaalkuu ka duwan yahay oo subaxii intaanu adhiga raacin wuxuu ku kallahaa oo wax ka soo bartaa malcaamadii uu ood dhigisteeda ka qayb qaatay. تدود معرو الزاج دوب الحاجة الزوج زرازي الزوج شدود مع الزوج الصاش دوب الحاصة خانكو أمسك العام خانكو خدمحو اسنو aniga lafteeda ayaa beegsanaya meesha uu mooyd wax ka soo barto oo masaafada ahaan la lugaynayo in ka badan 1 kiiloomitir. waxaan sii socdaba gaaray goobtii ay waxay ugu dambaysay maalintii oo dhigista oo xilligaan dugista ku guda jirnay ay u dhaxaysay muddo bil ah. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan ardayda u qaybiyey hadiyad yar oo aan u siday kana koobneed agabka waxbarashada. ardaydu way ku faraxsan yihiin waxbarashadooda iyo goobtooda waxbarashada iyagoo ood iyo geed wax ku hoos dhigtaa kuna fadhiistaa caagada la kala gooyey. haddana waxay wejiyadooda ka arkaysaa inay ku faraxsan yihiin fursaddan waxbarasho ee ay heleen. malcaamadda ayaa waxbarashadeedu waxay kulmisaa 4 jir ilaa da' ka weyn 20 jir iyadoo muhiimaddu tahay in saacadaha kooban ee la joogo uu qof kasta barto cashar uu xoolaha ku raaco. waxaana ardaydu wax bartaan 2 xilli oo kala ah subaxii inta aanay xoolaha raacin iyo habeenkii marka ay xoolaha soo hooyaan. maanta waxay tahay maalintii aan bilownay iyo maanta fasal weyn baa u dhaxeeya. waxaa u dhaxeeya ardaydii oo soo bartay, ardaydii wax fahantay, ardaydii oo wax soo baxay noqotay maanta. maalintii horena madow ku jiray maantana caddaan bay noqotay. maalin madow iyo maalin caddaan ay kala yihiin maanta marka la soo eego. فالتوالد حكومة مع ودير ودوين بكترتا مالنتي ورا أنا يديلها نقادني جيت هوسي أنا نقادني إن شاء الله إلهي وأنا لا قرقة وأنا إنه هرقش وحنا كل رتشوي إن أنا نقود بنود ذوين تجان كنا سيدو قصو تشيدو وحبرشة واسوي هم قاردة فردة مركنا يجنو واردة بدن ترى وحي مقياس كرنا شني لما تردد مقياس كرنا in badan oo kala way maqan tahay oo deegaanka ah oo deegaanka marka la sii gaartay lama koobi karo arday badan ay dhaq badan. marka aad aragto farxadda ardayda iyo sida ay ula dhacsan yihiin waxbarashada ay heleen waxay astaan u tahay xalka waxbarasho la'aanta miyiga iyo in dadku isku tashan karaan iyagoon cid kale waxba ka sugin.
magacayga nimco mahad xasan aad iyo aad baan wax u baranaya meel wanaagsan waan maraya alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baan wax u baranaa arday badanna macalinkayga si fiican buu wax noogu dhiga waxbarashada ma horaad soo dhigtay mise halkan baa lagaaga bilaabay halkan waa layga bilaabay horena waa laygu dhiga horena waa lagu soo dhigay halkaad marsaa adigu alxamdu baan marayaan sii dhaafayaaba waad sii maraysaa ka waran waxbarashadiina wanaagsantii aad iyo aad haye maxaa idinka maqanaa tabaysaan waxba ma tabayno geedkeena ku qanacsan geedkeena ku qanacsan alxamdulilah rabbil caalamiin waxaad soo jeedin lahayd inta dadka daawanaya dadka waxbarashada ka shaqeeya dadka waxbarashada horumariya waxaan ka qanacsanay inaan iskuul naloo dhiso ayaan ka codsanay haye aad iyo aad baan dabaysha iyo dhaxanta iyo waxaas maga dhibaa haddana waxaad ku qanacsantiin aad halkaas ku barataan maxaad oran lahayd dadka kaa daawanaya caalamka geedka hoos dhiganaya maxaad dadka soo jeedinaysaa طيب ولد حكوا يدينا ساعة قدوا سووا لوجينيس محل سووا لوجينيس. أنا سووا لي فيديو خبرته عن حسب عن خبرته عن فلسطين حتى ولا طيب إلا أنت لك وصل لوجيس أنت رسول لوجيس. يا أنت رسول لوجيس. طيب سوري قبل ودي أدو جيس كوهوس بريء لقاته يوم تقولون كتور ممكن يجيد باك بوك بس تحت فورم بس عين فرق أول حاجة دور. والله عاد ممكن عاد ممكن تقول فرق أول حاجة. أيوة معك وصلت كل ده. والله ما أنت وعين. أيوة. السلام عليكم وعين. كور جيت كوس إجا نسان. جيت كوس إجا بدي بدي. السجن يقول وعين لكن بس تقلحيه. ilaa xadkee ayay dadka deegaanku dareensan yihiin in xal loo helay xaaladii waxbarasho la'aanta ee haysatay waxa iska bedelay dalka dadkii yaryaraa ee aan waxba baranaynin ee aan culayska iyo ciriirigba igu hayay markay dalkoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u keeneen barasho ay yidhaahaan waan ku galkaalsanaynaa aanu annana ku warwarbeelay wixii saaka hoynimo iyo hanti kale uun baanu ka sii doonaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin awlaadii oo buugagoodii gacanta ku haysa ayay u yimaadeen kolkaa waxa weeyaan waxaan kororsiimo iyuun baanu iminka usii baahanayo dadaalka lagu hirgeliyey malcaamadan ooda ka samaysan ee geedka laga hoos yagleelay ayaa waxa kaloo ay soo jiidatay islamarkaana waxqabad yaable ku tilmaamay maxamed xasan dirir iyo xasan qorone oo safarka aan dhoobweyne ku tegay igu wehelinayay dadkani waxay oodan u waabteen si ay ugaga baxaan jahliga haddii daarcad oo ka samaysan quraarad laga furo jaamacad ama dugsi waxbarasho ujeeddadu waa isku midkii waa in jahliga laga baxo way fogeyn wakhtigii la oo dhigay malcaamadan nasiib wanaag maantana halkan waxaanu ugu nimi 25 arday iyo macallinkii oo waxbarashadii maamulaya waa maasha Allah iyo mahadnaq ee ku sugnaaday waxaa halkan inooga muuqdaa waa tusaale nool oo ku dayasho inaga mudan taageero la siiyaana waxay dhiirigelin kartaa inuu waaro isku tashigaas halkan ka muuqda waa kii hadraawi lahaa intuu maanku gaajaysan yahay guuli waa weli taageerada waxbarashada
runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan joogaa dhooba weyne oo haaxi wax yar u jirta deegaankan dadku ay iska degan yihiin waxa weeyaan xoolaleedaha xoolo dhaqatada meeshan waabkan imika aynu hoos joogno waa waab ay dadku dhisteen oo dadkii deegaanka jooga ay dhisteen oo ay gacantooda oodahan kusoo qaadqaateen ardadoodiina ay keeneen macalinkoodiina ay soo qabsadeen qur-aankii ugu dhigayo runtii waa dareen aad iyo aad u cajaayib leh waa dareen qiimo leh waa dareen farxadeed waxay xasuusinaysaa sidii ay dadkeenu ahaan jireen waagi hore ayay runtii xasuusinaysaa waxa weeyaan beel walow meel deganaaba geed bay waaban jireen arday qur-aan bay lahaayeen habeenkii markay noqoto oogta hore ayaa arday dabka loo shidi jiray oo arday qur-aanka xifdiyi jireen dadkeena dhalatay wax soo bartay halkaasi ka soo wada bilaabeen geedka hoostiisa geedkan imika aynu joogno galoolka ah ee la ooday bay ka soo bilaabeen waxbarashada markay qur-aanka soo dhameeyeen dugsiga hoosaa lagu soo daray markay soo dhameeyeen kii oodina lagu soo dari jiray iskuullada la midka ahaa waa raggaa maanta wasiirada ragii geedka hoostiisa ku soo bartay marka runtii dareenkaas aan dareemayaa waxaan dareemayaa in dadkii ay waxbarashadii macaankeedii la dhadhansaday markay dadku iyagu isku tashadaan ee waxbarashada macaankeeda iyagu ay dhadhamiyaan ay macaansadaan ay gartaan inuu ilmahoodani u baahan yahay inuu wax barto aan uga baahnayn inuu kaliya inay xoolaha u diraan ee xoolaha raaciyaan runtii waa dareen dadku wax ka bedeli kara runtii oo wax badan ka bedeli kara waxaan leeyahay dadkanu saasay wax u qabsadeen dareenkii waxbarashadii soo celiyeen inay hablaha waliba hablihii si gaara ay u soo badiyeen macalinku wuxuu sheegay 14 hablood iyo 10 nin bay imika lagu bilaabay bil baa beesha dhiganayay waxa weeyaan dareenka maca hablaha in wax la baraahi wuxuu keenayaa in dadkan sidan wuxuu qabsaday ee iyagu isku tashadeen dadaalay in wax la qabto oo wax la taro oo waxa weeyaan sida waxa weeyaan halkan waxaan ka dhisi karnaa maanta waxay tahay oo bay tahay laakiin waa deegaan ballaaran dadka intan area-dan deganay halkan degani waxaan sameyn karnaa in halkan laba galaas looga dhiso sabiradoodii loo keeno kuraasidii loo keeno maanta caagaha yar bay ku fadhiyaan caaga yar bay ku fadhiyaan kuraasi ma haystaan macalinka qura hal kursi ku fadhiya in halkan aynu ka dhigno laba fasal laga dhiso oo kuraasidoodii iyo miisaantoodiiba leh oo markasta dadka deegaanku halkan isugu wada yimaadaan oo qur-aankii ku bartaan oo diintii ku bartaan oo iskuulku ku bartaan oo wax walba ay ku dhigtaan runtii waxaan odhan lahaa meeshan dadka bulshada oo dhan baa xil ka saaran yahay aqoonyahanka xil ka saaran yahay ganacsatada xil ka saaran yahay xukuumaddeena xil ka saaran yahay inay geed walba iyo gelgelin kastaba ay waxbarashada geyso marka waxaan leeyahay dareenka ha laga jawaabo dadkana ha la soo caawiyo oo wax la taro waxa la gaaray xilligii labaad ee waxbarashada hooyadiisa oo arigii ku saaka soo hooyay ayaa isu diyaarinaya inuu malcaamadii aado una lugeeyo waa baar 7 fiidnimo mawlid nolosha miyiga uu la qabsaday oo kama cabsooday inta uu sii lugaynayo iyadoo habeenku madow yahay wuxuu sii qaataa toosh noo sheegay inaanu ka cabsan guditaanka iyo lugta uu habeenkii u lugaynayo malcaamadda u jirta masaafada ka badan 1 kiiloomitir mawlid oo aanu socodka habeenkaa ku helinaynay ayaa sida idiin muuqata waxaa noo suurtageli weyday inaanu helno iftiin nagu filan oo duubista muuqaalka naga caawisa soo gaaya malcaamadda oo ardayda dhiganaya waa habeen meeshuna waa miyi xilliguna waa xagaa oo waa waqtiyada ay dabeesha xagaagu ugu xoogan tahay iftiin ku filan ma haystaan oo waxay shitaan oo ay meel sare ka soo laalaadiyaan soolar yar oo ay maalintii cadceedda u dhigaan si ay dab u kaydiso arday kasta haddii uu iftiinku ku yaraado wuxuu adeegsada tooshkiisa oo markuu casharka akhrisanaya uu shito aniga lafteeda ayaa isku dayey inaan wax ku akhriyo iftiinka ay wax ku dhiganayaan oo waxay igu adkaatay inaan si wanaagsan wax u arko haddana way ku qanacsan yihiin inay wax ku bartaan waxbarashada habeenka ee malcaamaddu waxay fursad u siisaa dhallinyarada deegaanka ee da'doodu 20 ka dhaaftay waxaan u sahlaysaa haba weynaadaane in ay bartaan qur-aanka iyo asaaska diinta si cibaadadoodu sugnaato markay ardayda wax dhigistu u dhammaato waxay dib ugu noqdaan guryahooda iyagoo sii iftiinsanaya tooshashkooda ay dhirta iyo bahalaha hoose isaga ilaalinayaan
macallinka laftiisa ayaa marka ay ardaydu ka dareerto wuxuu isna sii qaataa oo iftiin ka sii dhigtaa marka aanay caddada ahayn ee aanu dayaxu jirin laambadii soolarka ahayd ee u baxaysay waa subaxii labaad ee aanu ku sugannahay Dhoobweyne Mawlid Xasan Macallin oo awal waagu u bari jiray isaga oo ka fikiraya raacista iyo waxbarashada cusub ee malcaamadda u soo kordhay ayaa hadda waxa uu helay deeq waxbarasho oo weliba ugu timi halkii uu ku sugnaa iyo Dhoobweyne waa natiijo ka dhalatay soo saaristii koobaad ee halkii aan ka imi waxa deeqda waxbarasho ugu deeqay ururka khayriga ah ee Sumbul ee gacanta ku haya dugsiga hooyga ah ee Xaaxi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أنا شخص قرنه حج علي وكمل مسؤولين تا أوركا تاكلت وحبرشنا بيجي الصنبور وحويا بورك حاجة عندك كوهيا مركان ضاوني في فيجي أما يوم الصوت مولد ومكيلة جوجا مولد حسن معلم وحويا إن كان مكيلة جوجا وبرنامج كوساب سنة مش عن كيمي وحبرشة ده cabdiskuul soo duubay markaanu daawanay ka gudi ahaan iyo maamulka iskuulka boorka gacanta ku haysta ee maamusha waxaanu go'aansanay inaynu Mawlid siino deeq waxbarasho oo boodana oo wax ka barto boodhanka Xaaxi biidnillaahi kana mid noqdo ardada sanadkan gelaysa 20ka bisha la gelaya 20ka bisha Juulaay baa la gelaya ardada 20ka bisha Juulaay gelaysa iskuulka uu ka mid noqdo ayaan waxa weeyaan siinay deeqda waxbarasho oo waxa weeyaan waxbarashadiisa oo dhameystiran macaawinadiisa macaahurdadiisa wixii soo dhan oo halka ku dhameystiranayo ayaanu siinay waana dadkii runtii loogu talagalay boodhanka Xaaxi markaanu asaasina waxaan ugu talagalay markii aruurtii miyiga wax ku baranaysay kulba iskuulkii ka guureen ee abaare dhacday inaanu sameeyno meel boodhana oo melja ah oo aruurta miyiga joogta lagu soo ururiyo si aanay marnaba u guurin oo waxbarashadooda ay halka ugu dhameystaan ka bacdi marka waxbarashada halka ku dhameystaana inanu miyiga ku celino macallinkii la guuri lahaa markay meesha guurto la guuri lahaa isaguna ay raaci lahaa ayaan ugu talagalay 4 dafcadood baa ka baxay alxamdulillaah imka meel fiican ma maraya waxaan ugu bashaareynaa Mawlid Xasan Macallin inuu ka mid noqdo ardayda san waa macallimiinta mustaqbalka Mawlid macallimiinta mustaqbalka weey oo ka mid noqdo macallimiinta mustaqbalka ee reeraha halka wuxuu ku dhigay la guuriyo markay doonaan ya insha Allah taala Mawlid baan dareenkiisa weydiinaa Mawlid ka waran deeqda waxbarasho ee lagu siiyay waxaa la siiyay deeqda waxbarasho ilaahay baan ugu mahad celiyaa fiicanta ka waran adoo dhulka wax ku qorayaa lagu arkay waxbarashada ka kala go'day imkana iskuul baad ku biiraysaa sida wax u baran doontaa si fiican wallahi de wixii markii hore qabsaday waan ogeey si fiican waxaan baranay dadkii ku hore ka naxay imka maxaad ugu bishaareynaysaa waxaan ugu bishaareeyay wax fiican in waxbarasho fiican heshay haye ande ilaahay waxaad u mahad celinaysaa waxaan ugu mahad celinayaa iyo haye Xasan Qarane iyo ururka Sumbul okay macallimiinta boodhanka Xaaxi يا معلمين oo aad hadhow isbaran doontaan hadhow isbaran doonaa de wax way dhigi doona maxaad ku leedahay iyaga ya waxaan ku leeyahay waxbarasho fiican waxa fursadan farxad ku qaabishay hooyo Caasha Cabdi oo waxbarasho la'aantii hore Mawlid ay culays ku haysay waxay noo soo bandhigaysaa dareenkeeda ay farxadu ku dheehan tahay deeqda waxbarasho uu Mawlid helay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa markii hore waxba de waxbarasho muu haysan wax waxbarasho muu haysan reerka iyo daawlihiisa iyo tacabkiisa muu ku jiro imika se waxbarasho uu helay waxbarashada uu helay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa macallimiinta de noogu deeqdayna iyagana waan u mahad celinayaa ilaahay
فرق أيمك وده حيمك أنا فرحت وين باي مكان أوضح حيسي مركي هرنا قدام حي وآدي هاد بنقول ورسنا وحبرش الأنتي ساي يوم قرنا يسايي يد رفعت كا مي وحلالي وحبرني وين دلعان وحبرش الآن وين دلعان مركا أيمك آدي هاد والله درين وين باي قال آدي هاد بنقول فرحسن ما شاء الله isagoo waabkiina wuu tegey waxbarashada isagoo waqti hadana tan kala deeqdana uu timid isagoo waabkiina wuu tegey oo isagoo waabkii la dhisay oo macallinkii helay oo marka ayay imkana tan kalena u timid deeqdan imkana u timid marka aad iyo aad man wallahi waxbarashada ugu mahad celinayna macallimiinta noogu deeqdayna aad bay u mahadsan yihiin marka ka waran maxaad ninka rajo ka qabtaa insha Allah rajo wanaagsan ilaa yaraantiisa soo koriyay ilaa markuu sabiga ahaa dhalanka ahaa soo koriyay intaaba wuxuu baan kula warwarsanaayo ma garanaysaa deeqdaas ma intaaba la rajeeyay imkana wuu helay deeqdii imkana mid ka wanaagsan oo ka sii badanna waan u rajeeyay marka insha Allah ilaahay ku anfacaan leh ninkan waa kii xoolaha raacayay imkana waxbarasho tagay magaca leedahay ka waran muxuu reerkii saameyn ku keenaysaa culays ma ku imanaya reerkii waxa ma waxba ku iman maayaan insha Allah waxba ku iman maayaan oo iska hagaagi doonta kulli waa iska hawla badan reer miida waa iska hawla badan yahay marka isagu manuka dursugeena hadii ay ka dhigoy deeqdiisa iyo garanaysaa iyo waxbarashadiisa iyo wanaagiisa marka waxaana way iska hagaagi doonaa insha Allah oo awlaad yar baa joogto oo iska soo kacayaano marka way iska hagaagi insha Allah mar hadduu waxbarasho helay way hagaagaysaa muuqaalka idiin muuqda oo dugsiga hoyga ah ee xaaxi ee Mawlid Xasan Macallin uu waxbarashada ka helay inkasta oo xilligii aanu iskuulka muuqaalka ka duubnay ay ahayd 13 Juulaay ee sanadan 2016 oo ardaydu ay fasax ahaayeen haddana Mawlid Xasan Macallin waxa uu ka mid noqday ardayda hadda wax ka dhigata dugsiga waxaana la soo sheegay inuu hadda dhigto waxbarasho isugu jirta fasalada koobaad iyo labaad haddii alla ka dhigo waa inoo mar kale iyo soo saarista saddexaad ee halkii aan ka yimi iyo Mawlid Xasan Macallin oo in la socon doono bar horumarka waxbarashada ka gaadho وقادا